علوم بدن بالغوي درada waxa kamida walaalkay Kinyawi anigu mugta wixii waa itusiye itaabsi raab baa la saaray marxaatiyada iyaga raab heys raab ah ayaa la saaray dadka saaray waa dad social media ku jira horta dadka saxaafada qayb kamida iyo youtuberleyda علوم بدن بالغوي درada waxa kamida walaalkay Kinyawi anigu mugta wixii waa itusiye itaabsi raab baa la saaray marxaatiyada iyaga raab heys raab ah ayaa la saaray dadka saaray waa dad social media ku jira dad u jawaabay inta social media soo fadhiisto culumadu nagama qabato in lagu caliyoodo qof dhahay anigu ma arag dad badan baa maanta lugaha i haysto nin inta social media soo fadhiistay warwadaadka gar loo ma sibnay waa laga gar daran yahay ha laga leexdo wadaad dhahay anigu ma arag bal waxa laga yaabaa inaad maalmaha soo socdo 5 wadaad iyo 6 wadaad oo shaqshantay ku dhigan inaad arki doonto hadii ilaahay cimri nasiib maxaa yeelay wadaadada qaar waxa ku dhacay wax la yiraahdo xaasidnimo ayaa ku dhacday علمadu markii dadka la rabo in la durane الحسد للعلماء يا ليلى waxa la xoogaa lagu tilmaamaa cadownimada in ayaga u dhowda wadaad maanta wadaad wuxuu ogol ay maanta ragnimadiisa iyo qaabka wax u gudbaaya ku qanacsan wuu jira adaniga Soomaaliya ragga ugu waaweyn Sheekh Maxamed Cabdi Umul uu xiriiriya maaha aniga ina xiriiriya asay xiriiriya uu duceeya talo isiya ha uu xiriiriya waana ku farxsanahay anu hadda garan maayo Sheekh Maxamed nin ka muhiimsan Soomaaliya inuu ku jiro aqoontiisa ummadda uu ku anfacay waqtigiisa ummadda uu geliyay talana ummadda uu ku anfacay meel kasto musiibo ka dhacdo uu taagan yahay wuxuu ugu la taliyaa jidka aan hay inuu jid wanaagsan yahay wuxuu ugu la taliyaa geegsi iyo dulqaad inaan la imaado inaan sabro xaqu inuu cadow leeyahay maantana xilliga lagu jiro wanaagu inuu yar yahay wanaag wax rabana inay yar yihiin marka inaan geegsi iyo dulqaad la imaado oo maaragtay dadka xunxun aan u jawaabin oo markii ay soo caayaan aan iraahdo ninkay caay hayaan anigu mihi ayuu ugu la dardaarmaa iyo dadka aniga jecel iyo reerkaygaba go'aanka oo shaqshantay meel dadka ku xiran iyo dadka Allahu Rabbul Alamin degan jecel Allahu Rabbul Alamin jecel oo dunida meel walba ay joogaan ila soo xiriiray weegan gudihiisa hadda gabagabada waxaan u balan qaaday cid kasto oo nagu caliyooto Sheekh Shantay soo weerarto inaan u jawaabi doonin taasna aniga balan qaaday maxaa yeelay maanta anigu magacayga wax buu gooyaa cid laga qaraayo ma leh habartii fuyuus u baahan maanta waa inay Sheekh Shantay soo qaadataa odaygii fuyuus u baahan waa inuu aniga magacayga soo qaataa marka waxa weeyaan Allahu Rabbul Alamin magacii meel fogeeyay qofku wuxuu wax ku noqdana waa diin inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi aqarin hadithku Umar awrinay inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman ilahi kitabkan dad buu ku cizeeya oo korbu ilahi ugu qaada qowmnu ku duleeya hoos buu dhigaa qowmku ilahi ku cizeeya waa kuwa barta ay raaca تعلم كتاب الله واتبع ما فيه برو كتابك الله مركاد برتو أدوغات حق إيا بادل نرع